السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كل بنات inaad software kala soo degto qadka isla markiiba uu ku weydiiyo inuu kaa dhacay expired uu kaa noqdo ama free trial wax la yiraahdo 30 maalmood uu ku siinayay. Haddaba waxaan ku hayaa hal arrintaas oo dhan aad iskaga soo afjarayso. Waxaan ku hayaa meel aad ka helaysid malaayiin software oo la soo crack-gareeyay. Macnaha la soo crack-gareeyay macnaha waxaan ka wadaa la soo jebiyay ama la soo xaday. Adigana baahiyaadkaada gaarka ah wuu xalinaya. Ballaarta muuska la soco. Ugu horreyn waxaad tegaysaa Chrome-ka. Kadib waxaad ku qoraysaa meeshan ay Google ku qoran tahay get into PC. Markaa qortid intaas ayada aadisa website-ka waa kana. Kan hadda kuu soo baxaya waaye. Get into PC download for your desired app. Midka adiga aad ka heshid ayaa soo degsanaysaa. Waxaa ku jira tusaale hoos hadaad fiirisid latest software download. Waxaa ka helaysaa software-adii ugu dambeeyay LAN, computer tips. Waxaa ka helaysaa sidoo kale qaababka loogu shubo fix PC issue. Haddii computerka macnaha uu kaa diido tusaale ahaan software-ka aad ku shubaysa qaabka u xalin lahayd iyo performance to solve problems iyo performance badan oo aad ku xalin kartid problemkaada ama dhibaatada markaas ayada ku haysato. Waan ku dhufanaynaa website-kan asaga ah. Markaan ku dhufano waxay leeyihiin category ama qaanado iyo mid walba ku jira. Haddaad rabtid software categories halkan ayaad ku dhufanaysaa midka aad raadinaysid. Ileen wixii oo dhan isku mid maahan. Mid wuxuu qaabilsan yahay analyze-ka, kan waxa waa animation-ka waxyaabaha soconaya ayaa loo isticmaalaa, kan 3D sawirada ayaa loo isticmaalaa, kan designing-ka ayaa loo isticmaalaa, kan modeling-ka ayaa loo isticmaalaa iyo boqolaal ka badan intaas ayada ah. Waxaad heli kartaa antivirus. Waxaad heli kartaa audio processing waxyaabaha codadka iyo waxaas lagu hagaajiyo ayaad heli kartaa iyo waxyaabo kaleeto ka sii badan oo ay ka mid yihiin Windows computerkaaga ku jiro iyo Office-ka inta badan la isticmaalo. Intaas oo software ayaa meeshan ku jirto oo isugu jiro system software iyo application software isugu jiro oo ah macnaha kan systemka uu ku shaqeynayo sida Windows iyo wixii la mid ah iyo kuwii adiga baahida intaba dhammaan aad ka helaysid ayaa halkan kugu diyaarsan. Mid walbeetana qaybtii uu yahay ama intii kaga jirta barnaamijkan ayaan eegi doonaa diilaa. Anigu mid ka mid ah ayaan iska qabsanaya. Tusaale uma baahni inaan wax dejisto sababtoo ah horay ayaan wax walba uga dejistay laakiin adiga ayaan hadda kuu faa'iideynaya. Tusaale antivirus-kan oo kaleeta iskaga dhufanaya. Antivirus-ka markaan ku dhufto waxaan dejisan karaa antivirus aan waxa ka soo bixin lahaa tusaale Avast Premium Security. Kaaga sii daran wuxuu kuu sharxayaa mid walbeeto waxyaabaha uu qabanayo waxa uu yahay inta uu kuu sharxayaa inta aadan soo dejisanin shuruudaha lagaga baahan yahay computerkaaga waxa uu yahay inta uu ku jira. Tusaale haddii aan fiirino kan hadda software-ka magaciisa waa kana setup waa kaas waa WinRAR waaye. Size-ka uu yahay waxa waaye 693 MB. Offline installer waana si asoo internet uusan kugu xirnayn ayaad ku xiran kartaa. Labadaba wuu aqbalayaa 32 iyo 64 bit inta wuu aqbalayaa. Waxaana barnaamijkan lagu soo daray ama la soo geliyay meeshan oo latest version release added la soo sii daayay waxa waaye 3 bishii February 2022 waxaa develop gareeyay antivirus-kan ama sameeyay shirkadda la yiraahdo Avast. Waka adiga marka computer requirement-iga adiga lagaga baahan yahay computerkaaga inuu ahaado wuxuu aqbalayaa operating system-ka sida Windows-ka oo XP, Vista 7, 8, 8.1 iyo 10. 11 hadda wuu soo baxay laakiin dabcan kan kuma jiro. Okay, RAM-ka computerkaaga uu yaraan inuu ahaado 512 MB. Hard disk-kaada inay ka bannaan tahay ama uu ahaado tusaale ahaan waa 700 meelahaas oo kale inay bannaan tahay meesha lagu shubi lahaa. Processor-kiisana Intel dual core high processor wuu aqbalayaa. Waad dejisanaysaa inta aan hadda aan sharaxay hadda u baahan tahay how to install oo aan garanaynin ku ka halkaas aad ku sii dhufanaysaa wax ka daawan kartaa guideline-ka. Dabcan waan dejinaynaa halkan ugu horeeya waxaan leenahay download. Marka soo dejisid password-kan wata hilmaamin 1 2 3 get into PC wax walba laga soo dejiyay password-kan ayaa ku xiran. Waan dejinaynaa kan ugu horeeya
inkastoo waqti badan uu qaadanayo laakiin haddana downloadingka markuu sameeyo sidee loogu shubtaa waa barnaamij kaleeto. Okay, intuu ka bilaabayo downloadka ayaan sugaynaa kadibna casharkaas intaasaan ku reebaynaa. That's okay. waa kana uu soo bixiyay 692. That's good. waxaan leeyahay then start bilaw. Okay, intuu degayo ma sugayno sababtoo ah sida loogu shubto waxaan ka dhigi doonaa haddii aad u baahan tihiin cashar kaleeto haddii Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.